بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta halkan waxa ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen wasiirada ay khusayso oo ay khuseeyo barnaamijkan GPLG-ga maamul dadejinta shirkaas waxa jeergareynayay madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash shirkaas wuxuu ku saabsanaa oo laga hadlayay sidii loo daadajin lahaa adeega ay bixiso dawladda Puntland hadday noqon lahayd caafimaad iyo hadday noqon lahayd waxbarasho iyo biyo iyo waxyaalaha ku saabsan arrimaha bulshada oo dhan adeegaas waxa laga hadlay sida ugu fudud loogu daadajin lahaa dawladaha hoose degmooyinka tuulooyinka si loogu dhaweeyo adeega ay dawladdu bixiso dadweynaha shirkan waa shir sanadkii laba jeer dhaca oo ay isugu yimaadaan wasaaradaha barnaamijkan uu ka dhaxeeyo waxa shirkaas maanta lagaga hadlay dhamaystirka xeerka arrimaha biyaha waxa kale oo lagaga hadlay sidii dawladda Puntland ay qoondada ku aadan barnaamijkan ay dardargelin ku sameyn lahayd isla markaana si rasmi ah ay u bixin lahayd waxa kale oo iyana lagaga hadlay arrimaha daadajinta waxbarashada iyo caafimaadka oo halkan la isku afkartay xarumo caafimaad oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa 20 oo heerar kala duwan leh in loo daadajiyo dawladaha hoose si ay maamulkooda u yeeshaan iyo ilaa 33 iskuul in wasaaradda waxbarashada iyana ay daadajiso ayaa la isla afkartay oo lagu ansixiyay waxaan rajaynaynaa programkaasi inuu noqdo program wax ka tara tayada adeega ay dawladdu bixinayso isla markaana adeega u dhaweeya dadka dawladdu ay rabto inay u adeegto hadii la haydmo runtii barnaamij muhiim ah buu ahaa dawladda Puntland muhiim ah